الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومحي آدابتا iyo ducada la rabo in qofkii muslimka ee Soomaaliya uu ku afuro isagoo kaga dayanaya nabigiisa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waxaa dhacda marar badan in qofkii maanta dhan Soomaaliya gaajeysna oo mana ee daalana markay qorraxdii dhacdo ee uu maqlo adinka in waxa ugu dhow uu gacanta ku dhigo afka saaro, balse taa waxaa ka fiican oo ka fadli badan inaad isweydiiso qaabkee ayuu nabigaada Muhammad sallallahu alayhi wasallam u afuri jiray, kadibna aad ku dayato, waayo waa calaamad ku tusinaysa jacaylka aad u qabto xabiibkaada Muhammad sallallahu alayhi wasallam. dadka nabiga jecel ee ku daydana maalinka yawmul qiyaamah miciisa ay noqon doonaan. marka u horeysa nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu u bishaareeyay dadka sooman, wuxuuna yidhi qof waliba oo soomana oo muslima waxaa u sugnaatay waqtiga uu afurayo duco mustajaaba ah, duco la aqbalayo oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uuna soo celinaynin. marka waxa u horeeya sameyn maxay tahay? marka aad afurayso ducayso, Ilaahay khayr adduun iyo mid aakhiraba weydiiso, inuu Ilaahay soonka ka aqbalo weydii, inuu Ilaahay dambigaada dhaafo weydiiso. hooyada iyo aabaha haddii ay dhinteen ama midkood dhintay, Ilaahay inuu u naxariisto weydiiso. haddii ay nool yihiin, inuu Ilaahay ku xafido oo uu dambigooda dhaafo weydiiso. muslimiinta idin la u ducee. markii la aadimo waxaad ku bilowdaa timir, walina tira isdheer, ku xijisay biyo iyo wixii kale Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku siiyo. ka dambana akhrisa ducadan uu nabiga sallallahu alayhi wasallam akhrisan jiray oo dheh ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. oo macnaheedu yahay oonkii waa tagay, xididadiina waa qoyeen, ajirkiina waa sugnaaday in sha allahu tacaala. waayo qof waliba oo soomana ajir ma helayo. dad waxaa jira soomana oo aan soonkooda la aqbalin, oon gaajo iyo oon iyo rafaad mooyane wax kale aan ka faa'iideynin. ilaahay subxaanahu wa ta'ala kuwa nagama yeelo. soonkeena ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha aqbalo مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إلى نغدغو. والسلام عليكم ورحمة الله. رمضان أقبل يا أولي الألباب فاستقبلوه بعد طول غياب. عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا فالعمر ضل سحاب. وتهيئوا لتصبر ومشقة فأجور من صبروا بغير حساب.